isku arkay asagoo weli nool oo aan rajo kaleena oo weli inuu soo caafimaad aan rajaynayno oo telefonkiisa iyo qadkiisa wixiisa inuu asaga u soo noqdo asaga inuu iskiis wixiisa u badasho aan rajaynayno ina aniga xadgudub uu arkay aniga hadda ku xadgudbi lahaa laakiin maanta anaa gacanta ku hayo akoonkaas gacanta ku hayo waxaas anaa hadda markaa guriga taga titiraayo ciddi kale ee muuqaal iyo sawir iyo wax kaysa walaalkaas iska cafiso ciddi ilaahay ugu dhawaanaysa u duceynaysa daa walaalka u duceysid adna malaa'iga kugu duceynaysa ha u duceyso inta ilaahay dambi dhaaf weydiinaysa u weydiisa ilaahay adna dambi dhaaf ku siinaa inta si wanaagsan ee walaaltinimo ku jirto uga hadlaysana ha uga hadasho xaaladiisa idinkana maalinkiinaasi qabtay waa laba gabdhood iyo gabar kale oo Kenya joogto saddexdooda intii soo raadisay boo u sheegay wax kale wax Mareykan joogi wax Sweden joogi iyo wax eedadiis dhashay iyo wax wal ahbariirtiis dhashay wax iga gal ma laha shalay inta waxanuusan hal qof kamid oo soo raadiyo oo ninka kabaran dhaah ma jiro hal qof oo u imaado isbitaalkaas u tago kuma jiro gabar walaashiis oo balanbala joogto mid Soomaaliya joogto Muqdisho iyo gabar ahbariirtiis dhashay oo Nairobi joogto saddexdaas gabdhood cida ahayn ninkaas oo eel ma arkin ani oo soo raadinaysa oo daqiiqadiisa wiciis waliba gabadha walaashiisa shaqiiqa ma ogi ani Soomaalinimadaas oo ii ahaa wiil Soomaaliyeed oo xanuunsan isbitaalkaas ku jiro oo aqaan oo ii ahaa ciddi dad u xigtay dad u lahaa 17 maalmood 16 maalmood isbitaal ku jira oo maalin u soo sheegay xaaladiisa qof isoo xiriirisana saddexdaas gabdhood ka arkane ilaahay maxariisto janaalaas amiin adoo soo noqona marka waxaan niga codsanaa saddex arin aan niga codsanaa wiilkaas walaalkiina cid walba oo muuqaal kiisa heeso ama sawir wixiisa heeso iska tirtirto telefonkiisa anaa gacanta ku hayo laba akoon oo lahaa oo aaladan hadda isticmaaleen oo ku lahaa akoon mar hore uu ahaa mar hore wax ma uu soo galinin akoonkaas passwordkiisa wixiisa inuu iloobo umaleena akoon kale anaa gacanta ku hayo telefonkiisa anaa gacanta ku hayo inta uu xanuunsana oo isbitaalka uu ku jiray maadaama qof hadli karo uusan ahayn qof go'aan qaadan karana uusan ahayn anigana ma aan rabin inaan ku xadgudbo telefonkiisa waa hay walaalo fara badan oo idhaayeen ciwaankiisa titir qadkiisa titir wixiisa titir dhaay way jireen laakiin anima aan dhageysanin waxa isku arkay asagoo weli nool oo aan rajo kaleena oo weli inuu soo caafimaad aan rajaynayno oo telefonkiisa iyo qadkiisa wixiisa inuu asaga u soo noqdo asaga inuu iskiis wixiisa u badasho aan rajaynayno ina aniga ku xadgudub uu arkay aniga hadda ku xadgudbi lahaa laakiin maanta anaa gacanta ku hayo akoonkaas gacanta ku hayo waxaas anaa hadda markaa guriga taga titiraayo ciddi kale ee muuqaal iyo sawir iyo wax kaysa walaalkaas iska cafiso ciddi ilaahay ugu dhawaanaysa u duceynaysa daa walaalka u duceysid adna malaa'iga kugu duceynaysa ha u duceyso inta ilaahay dambi dhaaf weydiinaysa u weydiisa ilaahay adna dambi dhaaf ku siinaa inta si wanaagsan ee walaaltinimo ku jirto uga hadlaysana ha uga hadasho xaaladiisa idinkana maalinkiinaasi